الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أما بعد، walaalayaal waxaynu isku waaninaynaa xusuusta aakhiro, ama waxaynu iska waaninaynaa yididiilada dheer ee adduunyada qofku hamigeeda uu xambaarsan yahay isagoo aakhiro ilaawaya, oo xusuustii aakhiro ay ku yaraanaysa adduunkana uu ku cabaysan yahay qofku. dadka dhintay markuu ka waramayana uu ka dhigan yahay sidii isagoo aanu dhimanayn oo kale. hebel baa dhintay, berigu hebel dhintay, saas hebel baa, dadkaasunbuu ka waramaya, isagu laakiin liiska iskuma darayo. waxaysu sheegeennuna wacyigelin iyo waanowey in wixii aqoon la isku kordhinayo iyo xusuusta aakhiro labadaba khudbaddu in aynu isu sheegnay u taagantay. qofku isku mid maaha bani aadamkaahi hadduu aakhiro diyaar u yahay oo geeridu ay ku timaado la yaab kuma noqoto, mana tamaniyo in adduunyadii loo celiyo, laakiin wuxuu ku farxaa wuxuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. qofku isagoon aakhiro ku talagelin oon diyaar ahayn, marka ay geeridu qabsato qur-aanku wuxuu ina barayaa in calaan caliyo isciilkaambi iyo muruga ka soo hadhayso oo leeyahay ilaahay oo celi aan isbedel sameeye. ilaahay baa wuxuu leeyahay rubamaa yawadu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin. diinlaawayaashiyo dadkii gaaloobay waxay jeclaan lahaayeen markay aakhiro tagaan inay islaami lahaayeen. kii camalka ka tegay islaam ahaana inuu camal samayn lahaa buu jeclaysanayaa. nebigu sala allahu calayhi wasalam casharkan asxaabta hor fadhiya oo culimo ah buu u dhigi jiray. maalin maalma weliba far waaweyn buu ugu dhigaya iyo tusaale, iyadoo uu asxaabta hor fadhiya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu khad murabbaca buu sameeyey. khad afar geesoo xidhan ayuu sameeyey, khadna wuu ka dhex tallaabiyey. markaa wuxuu yihi khadkaa dhex tallaabay halkaa dhaafay halkaa sii socdaa waa yididiiladii qofka iyo hamigiisii. waxaa qabo, waxaa samee sanadkan 10 sano 5 sano, ajashiisiina waaba tan soo afxidhayba. cimrigiisiina wuu afgo-an yahay, amalkiisi iyo yididiiladiisiina way dheertay. tusaalahaasuu nebigu u sameeyey ummadda si ay wax ugu fahmaan. waxaa aada u cajiiba qofka bani aadamka ahi marka cimrigiisu sii dheeraado sii weynaado wuxuu jeclaanayaa da-da iyo maalka. waa dabeecadda insaanka caynkaasoo nebiguna uu ina baraya. laa yazaalu qalbu lkabiiri shaaban fi ithnatayni fi xubi dunya wa tuuli lamal. qofku buu ihi markuu weynaado labaa da- yaraada, cimri jacayl iyo cuud jacayl. xoolahana wuu jeclaanaya, laga fujin maayo. inuu cimrigiisu dheeraadana wuu jeclaanaya. naftiisa run uma sheegayo. waxaa laga yaabaa qofka yidhaahda beryahan waad gabowday iyo waad coocoodhay iyo waad sillanaantay, maanta o dhan buu cadhaysnaanaya. ka yidhaahda beryahan waad nuuraysaa iyo waad da- yaraatayna wuu u ducaynaya inu lacag siiyana waa laga yaabaa. haddee wuxuu yahayna wuu isagiyo tinkiisa iyo tagooggiisa ka muuqataa qofka. waa dabeecadda insaanka. qofkiina inuu baraarugsanaaba ahayd uu ogaado inuu sii dhow yahay, kana sii anbabaxaya, kana sahay qaato. ibnu xajar wuxuu leeyahay qofka bani aadamka ilaahay wuxuu ugu abuuray sirta loogu abuuray yididiiladan iyo amalka waxa weeyaan si noloshu macno u samayso, adduunka aan looga gacmo laaban oo looga fadhfadhiisanin in loo camiro oo loo shaqeeyo. marka waxa madmuumka ah ee la eedeeyey waa yididiilo bilaa camal ah, laakiin yididiilo macal camala maaha. qofku isagoo adduunyada u shaqaysanayo, aakhiro u shaqaysanaya, istiraatiijiyadu leeyahy, tii gaarka ahayd iyo tii guuda ummadaba. maxaynu bilahan yeelaynaa, sanadkan maxaynu yeelaynaa, ka dambe soo socda. nebiyullaahi yuusuf waxaad arkaysaa isagoo 15 sannadood dadka barnaamijkoodii dhaqaale u dejinaya. laakiin waxaasoo dham iyaday jiraan
ayaa haddana qofku ogsooyuu ku qanacsan yahay inuu imika dhiman karo ila looma sheegini marka anbabaxan uu diyaar isaga yahay arrimihiisana uu wataa anbabaxana waa u diyaar nabiguna sallallahu alayhi wasallam saasuu ina barayaayo waxa uu iqtanim khamsan qabla khams shar arrimood intaad haysato ka faa'iideyso waa nolosha waa dhalinyarnimada waa faraaqa waa caafimaadka iyo maalka shanta way ku dhaafi karaan si degdeg ah ka faa'iideyso idan markaa ididiiladu qofku inuu yeesho barnaamij mid dhow iyo mid dheerba islaamku ma diidanee waxa la diidayaa ku buuxsanaanteenu adduunyada ku buuxsan iyada aakhira meel la iska dhigay oona safarkana ku tala galinba nabigu sallallahu alayhi wasallam sida asxaabta muuqaalka ugu siiyay maqaal iyo hadalna uu ku siinayaa mar walba uu ku celcelinayaa asxaabigii cabdillaahi ibn cumar odhanaya radiyallahu canhuma ayaa wuxuu yidhi akhada rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama bimankibi nebigu maalin buu garabkay qabtay macnaha wuu soo jeedinayaa si uu soo wada qaabilo waxa uu yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariib aw caabiru sabiil adduunyada waxa aad ka dhigataa oo aada noqotaa qof ku cusub oo qariiba macnaha aan deegaan aanay u ahayn ama dariiq maraya qof musaafira iska dhig ama meeshaan aan lahayn sidaasaanay tahay ficlan dadkii saalixiinta ahay waa wanaagsanaa sidaasay u fahmeen lidaalik baa isagoo hadalkaa nebiga hirgelinaya cabdillaahi ibnu cumar saxaabigaa qaaliga ayaa wuxuu maqaalad u lahaa uu dadka u sheegi jiray oo odhan jiray idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa mar haddii waagu kuu baryo galabtii ha sugin haddii gabalku kuu dhacana waagu inuu kuu baryayo ha sugin iska diyaargarow wakhud min sixatika limaradika wa min xayaatika limowtik intaad caafimaad qabto ka faa'iidayso sidoo kale geerida intaanay iman nolosha ka faa'iidayso wacudda nafsaka min ahli lqubuuri fainaka laa tadri fainaka laa tadri ya cabdallaahi masmuka gadan riwaaya intaa ku daraysa tirmidi leey naftaadana waxaad ku tirisaa liiska dadka galay xabaalaha aroorta ma ogid magacaagu wuxuu noqon doona ma cabdullaahi buu noqonayaa mise meydkii dhintay dadkii wanaagsanaa ee loo baahan yahay nolosha inaynu ku dayano saasay u fahmeen nin baa u soo galay asxaabigii abudar la odhanayay oo nin zaahide ahaa gurigiisii buu egeegayoo waxba wuu ka waayay wax alaaba ku camiran oo yaalla wuxuu ku uhi yaa abaadarin ayna mataacuk abidarow alaabtii gurigu meeday ile guriga xun baa la dhigdhiga lagu yar dhalaaliyaa waxau uhi inna lanaa beytan natawajahu ilay gurigaanu leenahay kaloo kaasaan kusii soconnaa xaggiisa waad iska fahmaysaa oo kii aakhiro faqaala innahu laabudda laka min mataacin maa dumta haahuna ha laakiin kan intaad degan tahayna dee kolley wax yarood goglatay iyo wax yaroo lagu raaxaysto waa loo baahan yahay meeshu way maran tahay haddana hadalkiibuu kusii celiyo waxau ihi inna saaxiba albeyti laa yadacunaa fiih warkuba wuxuu ka taagan yahay cidda guriga leh ayaa nagu daynayn waa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa gurigan iskale hore unooga dhaqaajinaya ka hore un baanu diyaarunay inaanu alaab ku cambiranay jannada asxaabigii kale isaguna jibada badnaa salmaanulfarisi la odhan jiraa markii uu sii dhamanayay ayaa uu ilmeeyey markii la weydiiyeyna wuxuu ihi ballan uu nebigu nala galaanu ka baxnayoo ahayd in bahashan laga qaato sahayda adduunyada inta qofka raakibka ama inta musaafirku qaata in leegun wayse nagu badatay buuhi bahashi marka alaabtii gurigiisa taallay haddii aanu tirinayna dhowr iyo 80 dirham bay dhowr iyo 30 dirham bay la qiimo ahayd buuhi intaasuu ka kulul yahay أحد أعلام السلف باوحة لها إنما مضى من الدنيا أحلام وما بقي منها أماني والوقت ضائع بينهما الدنيا ذو الصدح وحي هولت تغيوى ريو إسكو أراكتوي الدنيا ذو وحي النظافي الرياض هذا ذي مكحال الرياضي ويكايرا كلا بحثتا كل بقيبة صايرة حصوصتا مسكحة قيبة مخيلة أياد وحكو صايرة علسان الدنيا ذا انتي كل رافتين والرياضة سو كلاون
toban sano iyo 5 sano iyo wixii tagay waa xusuusahaas bay ku soconaysa qaybna waa amaaniyo waa waxaynu ku yidi diilanaynaan hubinba inaynu gaari waqtiguna labada dhexdooda ku dhamaaday bay oran jireen hadii la isweydiiyo maxaa yidi diiladan dheer ee sidan u xun loo diiday waxa ka dhalanaya 5 arrimood oo xigmadu ay tahay markaad yidi diiladaada dheerayseed xusuusta aakhira iyo dhimashada iyo barnaamijkeeda iska yarayso waxa kugu dhalanaya 5 arrimood الرغبة في الدنيا الدنيا جعلانيسا ولا ودا جعليها انتي لو باهنا ان كبدن ودوالانيس والنسيان للآخرة آخرنا وادي لاويس إلا قولادو مالنتا دمتا آيات كراهيسانيس مالنتا هبه لو دمتو إيا هديا دمتو waxaad ka horgeynaysaa la samax Allah ilaahay ba maqadaray baad dadka ku oranaysaa markii ku dhaadaan hadaa dimato aakhirana wad karaahaysanaysaa والقسوة في القلب قفك قلبك سنو قنبابا ياو نحريستي باكو يران يسو قلفيا waxa kala ka dhalanaya inuu cibaadadii iyo amalkii yareeyo iyo daacadii ila daacada iyo cibaadada inuu badinayna waxay nagu riixayaan sahay aakhiraynu doonayna oo waxa qofku sahay qaataabu baadi doonaya safarkan uu diyaar u yahay arinta shanaadna waxa weey at-taswiifu bit-tawba tawbada ayuu qofku dib dhigaya wali may gaarintaas u haya marka inuu mar walba toobad keeno oo qirta dambigiisa inuu ku halaagsami doono taas uu yareynaya Ali ibn Abi Talib oo ahaa dadkii uu nabigu gacantiisa ku rabeeyay oo soo saaray xigmad badan lahaa ayaa wuxuu leeyahay in akhwaafu ma akhafu alaykum اتباع الدنيا اتباع الهوى وطول الأمل لبا الرمضان بان نوغا بقيايو إنو قفكو ربيتانكي سراعو ييدي ديلا دير اتباع الهوى فإنه يسد عن الحق وأما طول الأمل فإنه ينسي عن الآخرة أو ينسي الآخرة هديو قفكو هودي سير ربيتانكي سهقامي حقو كبيرا هدود يدي ديلا دير يستنى waxa ku dhacaya markaana inuu aakhiro ilaawo intubana waa arimo khatar ah maqaaladii salafka dhaxalgalka ahaa baynu sii wadaayeen nin suhaada kamida baa wuxuu yiri kuunu min allahi ala hadar wadadiyahu ilaahay ka feejignaado ha aaminina laakiin ka baqda wa min dunyaakum ala khatar adduunyadiinana khatarteeda ka feejignaada waa lagu halaagsama halkane wa min al-maut ala wajal geeridana aad uga cabsada oo isdaga marinina wali qudum al-aakhirati ala ajal safarka aakhirana isaga diyaar garoobo hore ugu diyaar garooba sida la doonayo qofku inuu naftiisa u rabeeyaa sidaas imaamka la oran jiray macruuf al-karkh oo ahaa nin zaahida ayaa salaadii baa soo gashay isagoo la jooga nin la oran jiray Maxamed ibn Abi Tawba kolkaasuu yiri natuki macruuf oo natuki waayahay buu in sallaytukum bi hadhihi salati lam usalli bikum ghayraha waxa laga yaabaa haddaan salaadan idin tukiyo talabaad inaanan gaarinba ninkii kalena uu la hadlay wuxuu oo ma talabaad baad sugaysaa ilaahay baanu ka magan galay diilada dheer salaada labaad ee duhurka tukanaysa casar baad sugaysaa anigu imika baan diyaarahay حاتم الأسد نكي لورنج حاتم ابن علوان بقى لورنجري وحول ما من صباح إلا والشيطان يقول صباح كستو واقو بريا الشيطان كنو قيلنا يا تذكر أيو كدح قيلنا يا مركزا وحوليه ما تأكل وما تلبس وأين تسكن ضدك سكريم كفقر يقول صهر نجايا نقول هو ضل يا وحوليه محاد عوني محاد حران دونتا قولي جباد قلي انت نقوم بابا ضدك كعب يسب ضدك أنا ذاك يسحي ما ياكل شيريا يجون يسود الدليل يدقوه هذا كاساك قيلنا يا محاد عنا يسام محاد عب يسام محاد حران يسام مركو انت إلى هذا أنا وحنا هذا أقول آكل الموت وألبس الكفن يريد أن عني دونا لكن حرنا يا نوا كفنتا وأسكن القبر قبر جنا وقري جاي جواب تساسان وقدر جاب
إلزم مولاك تكن الدنيا راغبة والجنة عاشقة. قف يا وحن كلايا هايبولي إلهاga ka agdhow subxaanahu wa tacaala adduunyaduna way ku iman doontaa iyadoo ku xiisaynaysa jannadana waad heli iyadoo ku caashaqsan marka walaalayaal waxaynu isku baraarujinaynaa sidaynu u fikiraynaynu wax ka bedelo oo qofka muslimka ah uu kala garto daar almaqar wa daar almamar deegaanka rasmiga ah iyo halku safarka ku marayo haddaad aaminto goobtan inay tahay goobtii safarka ahayd ayaamaha koobanna aad ku haysatay ehel iyo aqaarib ummadii tagtayna aad xusuusan tahay waad iska diyaargarooba haddaad isilowdana kadis bay kugu noqon doontaa iyo kuwa ilaahay uu qaylinayo kuwa uu ka warramayo qayladooda allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة